taliyaha ciidanka xoogga dalka qaybta 27aad guutada shanaad ayaa la wareegay ciidamo ku soo biiray ciidanka xoogga dalka Soomaaliya. ciidamadan ayaa muddo 5 sano ah la dagaalamayay ururka naflacaariga ee Al-Shabaab waxayna guulo weyn ka soo hooyeen deegaano hoostaga gobolka Hiiraan iyo Bakool. wanaag iyo farxad noo ah ciidamo ku soo biiray xoogga dalka Soomaaliyeed hubaysan loo yimid muddo badan naga maqnaay laakiin caloosha yani uurka aan iska ogeyno cadawga la wada dagaalamayni ayaan halkaan ku soo dhaweynaynaa xerada lama galay taliska guutada shanaad ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed waxaa salaan gaara idinka wada taliyaha xoogga dalka Soomaaliyeed iyo abaanduulaha xoogga dalka salaantaas oo ah in la dhiirigeliyo ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed waxa si sharaf leh oo karaamad leh arrintan noola abaabulay oo ka shaqeeyay oo mahadsan saraakiil ciidankan wadata xildhibaano ka tirsan Hirshabeelle wasiirro ka tirsan maamulka gobolka Hiiraan oo u horeeyo gudoomiyaha gobolka arrintaas arrin aad iyo aad aan ugu faraxno waaye soo dhawaada walaalaheenow soo dhawaada ciidankeena qalabka sidow ku soo dhawaada dawladdeennii Soomaaliyeed. dhanka kale taliyaha ayaa tilmaamay howlgallo ka socda gobolka Hiiraan waxauna sheegay inay naflacaariga kala wareegeen deegaano hoos yimaada magaalada Beledweyne iyo Buuloburte. fiican howlgalkii wali ma dhammaan oo waa socdaa waa ogtiin ciidankii ka dhaqaaqay magaalada Beledweyne inuu meelo kala jiro oo gobolka meelo kala hadda oo uga jiro difaac ama oo howlgal ka wado howlgalku wali ma dhammaan waa socdaa cadawgana in allaale waxa aniga qaasatan waxaan ka lugay magaalada Baardheer tuulada Baardheer aan ka lugay waxaan lug ku tagay Buuloburte inta waa lugayna cadawga maalin iyo subax waan isargeyna galab iyo subax waan isargeyna waa dagaalamay cadawna celiya oo ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed celiya nimanka amisom nala socday saaxiibaan ahayn waa wada soconay laakiin ciidanka dagaalamay ee cadawga is arkayeen ee dilaay ee hubka ka qaadanay waxa ay ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed Al-Shabaab khasaare badan aan gaarsiinay waxay noo dhigaan 34 qarax 34 qarax ay noo dhigaan hal qarax ayay ciidankeena kala heleen asagana 2 qofood ayaa iiga shahiido ciidanka xoogga dalka labana way iga dhaawacantay wax kale oo dhibaato laakiin ayagu shabakadii qaraxaas dhigaysay iyo macal gaarigay saarayeen waa burburin deegaanadan qabanno dhan howlgalka ka socdo deegaan kalena waa ku sii diri doonaa waxaan isku dayi doonaa jidka Buuloburte iyo Beledweyne inuu furmo jidka Jallaqsi ilaa Jowharna oo furmo oo dhammaan jidad badan oo cadawgu haysta ay furmi doonaan haddana abaanduuliye qaybta 27aad wuxuu joogaa Buuloburte oo ku hogaaminaya dagaalka anuguna waa ku laaban doonaa hadii alle howlgalladaas waa fiican yihiin cadawgu wuxuu isku dayay inuu dhabar jibin gadaal ka sameeyo laakiin ciidamadeena way ka war heleen waana laga raayay waana laga durjiyay meesha uu joogo waxay ku soo urureen inay qarax dhigaan ama dadka shacabka ay argagixiyaan moogiyo wax kale oo Al-Shabaab markay waa garan kartaa 13 casho aan dagaalamayna 13 casho Al-Shabaab la celiya hal daqiiqo hal saac Al-Shabaab la celiya ma arag